sidee ku ogaa kartaa in fitamiin D-du kugu yar tahay iyo in kale? Halkee ugu sahlan ee aad ka heli kartaa fitamiin D-ga jirkaagu u baahan yahay? Maxay yihiin cuntooyinka ay tahay in aad ka warhayso? Su'aalahaas iyo qaar kale oo badan ayuu ka jawaabi doonaa muuqaalkan ee ku soo dhawow. wax yar joogso, dadaal iyo waqti badan ayaan ku bixinaa si aan u soo gudbino wax sugan oo la isku halayn karo. Marka laag saar muuqaalka, haddii aadan horay u dhihinna subscribe ku qabo. Mahadsanid. Assalaamu calaykum. ku soo dhawaada saaxiibayaal mar kale mawduuca toddobaadka oo faahfaahsan. Marka hore aan ku bilowno, waa maxay fitamiin D-du? Muxuu taraa? Fitamiin D-ga waxaa loo yaqaanaa fitamiinka iftiinka qoraxda, sababtoo ah waa nafaqada kaliya ee jirku uu ka helo marka uu maqaarka qofka qoraxda iftiinkeedu ku dhaco kana soo saaro fitamiin D-ga. Fitamiin D-gu wuxuu ka caawiyaa dadka in jirkooda si fiican u qaato maadooyinka calcium iyo phosphate oo ah nafaqooyin qofka ka caawiya inuu helo ilko, murqo iyo lafa caafimaad qaba oo xooggan. Fitamiin D-da wuxuu muhiim u yahay lafaha, ilkaha iyo muruqyada. La'aantiina waxay horseedi kartaa cudur lafaha ah oo loo yaqaano rickets oo carruurta ku dhaca, iyo xaalad la mid ah daciifnimada lafaha ah oo iyana loo yaqaano osteomalacia oo dadka waaweyn ku dhaca. Fitamiin D-gu wuxuu ku milmaa dufanka qofka jirkiisa ku jira, waxa uuna lafaha ku ilaaliyaa in ay ahaadaan kuwo xooggan oo caafimaad qaba, waxaana uu ka qayb qaataa caafimaadka maskaxda. Qofkana wuxuu ku caawiyaa inuu helo hurdo wanaagsan. Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu sheegay in 50% dadka adduunka ku nool ay ku yar tahay fitamiin D-du, haba ugu sii darnaadaan dadka ku nool wadamada reer galbeedka iyo kuwa qabowga ah ee qoraxdu ay ku yar tahay. Bukaanada ka cabanaya fitamiin D yarida qaarkood wax ifafaala ah oo muujinaya in ay ku yar tahay fitamiin D-du oo lagu arkay ma jirto baaritaanka ka hor, balse waxaa la leeyahay haddii aad isku aragto calaamadahan soo socda, waxaa suurtagal ah in fitamiin D-du kugu yar tahay ama ay hooseyso, sida daal badan, hurdo xumo, lafa xanuun, niyad jab iyo murugo, daciifnimo murqaha ah, timo daadasho, unuglaansho xanuunada, iyo ugu dambeyntii isbeddel maqaarka ku yimaada. Marka waxaad samayn kartaa baaritaanka ku aadan heerka fitamiin D-daadu ay marayso, kaas oo lagu ogaanayo kadib markii dhiig lagaa qaado in ay yar tahay ama in ay caadi tahay. Waxaa inoo soo socda qoraxda oo ah halka ugu muhiimsan ee laga helo fitamiinkan, sida iyo waqtiga looga helo. Balse markaan aan u imaano cuntooyinka dabiiciga ah ee laga helo fitamiin D-ga, gaar ahaan xayawaanka. Kalluunka ayaa ah isha ugu horeysa marka la eego fitamiin D-ga laga helo xayawaanka. Waxaa ku soo xiga ukunta qaybta jaalaha ah. Beerka lo'da ayaa asna ka mid ah meelaha laga helo fitamiin D-ga, iyo sidaas oo kale beerka kalluunka. Cuntooyinka caadiga ah ee ay ku jirto fitamiin D-du waxaa ka mid ah caano lows oo ah caano laga sameeyey lowska, soya milki oo ah sidoo kale caano dhir laga sameeyey, oranjada ama liima macaanta, iyo boorashka. Qoraxda. Fitamiin D-ga halka ugu muhiimsan ee laga helo waa qoraxda. 30 daqiiqo oo subaxii ama galabtii aad qoraxda isku dhigto ayaad ka heli kartaa fitamiin D-ga jirkaagu u baahan yahay. Walow cilmi baarisyada la sameeyay qaarkood ay leeyihiin dadka madow waxa ay u baahan yihiin qorax ama waqti ka badan midda qofka cad, waayo fallaaraha qoraxdu sahal uguma gudbi karaan maqaarka madow sida ay leeyihiin. Waxaa laga yaabaa in aad isleedahay, Soomaali haddii aan nahay qorax badan ayaan haysanaa oo xilliyada qaar nafta nagu kadeeday, sidee fitamiin D-gu noogu yaraan karaa ama fitamiin D yari noogu dhici kartaa? Balse qoraxda laga helo fitamiinkan waa midda aan ka soo hadalnay oo ah subaxii iyo galabkii. Sidoo kalena waa in qofku ugu yaraan isku dhigaa 30 daqiiqo asaga oo xaggeeda u jeesanaya ama ka badan. Ugu dambeyntii waxaa jira fitamiin D loo sameeyo sida kaniiniga oo kale oo loogu talagalay in ay qaataan dadka fitamiin D-du ay ku yar tahay ama ay aadka u hooseyso. Inkastoo waxyeelo sidaasi u sii weyn uusan lahayn haddii la iska qaato ama la badsado, maadaama uusan kiimika ahayn, haddana waxaa habboon in dhakhtar lagala tashado xaddiga la qaadanayo. Waxaa laga yaabaa sida dad badanna ku dhacday oo Soomaali ah
ayada oo fitamiin D ku yar tahay oo kaliya in baaritaano qarash badan uu uga khasaaro.